furwaag gaday abaay guri qaalan maqaayada inta ka cunaa waana ka daneystay abaay hadda la wax gadan rabaa lacagna ma youtuberada caanka ee fartuun balbalaarka ayaa markii ugu horeysay waxa ay aada uga qoomamaysay burburka ku yimid reerkeeda waxaana ay sheegtay in ay qaati ka taagan tahay nolosha iminka ay ku nooshahay oo cidhiidhi badan ay kala kulantay waxa ay fartuun balbalaarka oo kasoo muuqatay tiktok live ay kaga warbixisay dhibaatada ku habsatay safarkeedii magaalada nairobi oo waqti halkaasi ay ku qaadatay marka ay dib ugu soo laabatay magaalada muqdishona ay aada ugu adkaatay halka ay wax ka bilaabi lahayd maadaama ay sheegtay inaysan haysan guri ama hoy waxay sheegtay furiinkeeda kadib in gebi ahaanba ay iibisay oo suuq ay dib ugu celisay alaabtii ay horey usoo dhigatay haddii ay noqon lahaa fadhi qado jief wax walba oo gurigeeda yaalay waxaana ay intaasi wixii ka dambeeyey ay sheegtay in ay ku nooleed nolol run ahaantii ay adag tahay qofka in uu ku noolaado waxay sheegtay in maalinba meel ay ka qurcan jirtay qado iyo cashana ay ka cuni jirtay gabdho ay aada isugu dhow yihiin oo ay saaxiibo yihiin iminka ay dib ugu soo laabatay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliyeed waxa ay iyadu aada markaasi uga diirinaysay bal halka ay wax ka bilaabi lahayd maadaama markaasi ay dhibaato xoogan ku habsatay jeebkeedana uu faaruqoobay sidoo kalena sida iyadu ay hadalka u dhigtay ay musalliftayba oo aysan haysan dhaqaalo haddaba aruush oo mid ka mid ah dadka muxsiniinta social mediahana aada ku wada aragteen dhowaanahanba wadanka koonfur africa ayuu ku sugan yahay oo wiil ka mid ah dhalinyarada isticmaalo barta tiktoka waxa u ballan qaaday in uu markaasi gacan ka geysan doono sidii ay ku ijaaran lahayd guri maadaama ay sheegtay in ay haysan lacag ay ku ijaarato guri lacagtaasoo qiimaheedu uu dhan yahay $300 aruush ayaa kafaala qaaday in lacagtaasi uu ka dhiibi doono waxaana uu sheegay in loo baahanya inaad baashaasho oo waqti qurux badan aa qaadato farxadna ku ilowdo wixii ku soo maray ee dhib ahaa waxa uu yidhi walaasheedii aniga ayaa kaa bixinaya qarashkaasi maalinka beri mana ahan arrin baraanka ah sida soomaalidu inta badan ay aaminsan tahay waa arrin dhab ah wuu yidhi oo aan doonaya in jeebkayga aan kaa siiyo lacagtaasi aad u baahan tahay fartuun balbalaarka waxa ay aada uga sheekeynaysay bal waxyaabihii nolosheeda markaasi kusoo siyaaday furiinkeeda kadib video kale oo ay kaga warbixinaysay arrinkaasi oo aan filayo inaan idinla wadaagi doono goordhow halkana aan idiin soo dhigi doono ayaa waxa ay tiri bal furiinkii kadib waxyaabo badan ayaa igu soo kordhay bay leedahay ma haysto markaasi meel la igu soo hagaago haddii uu noqon lahaa guri maadaama alaabteedii aan ku wada khamaaray iminkana aan noqday qof markaasi baagamuudo ah runtii waa arrin dhibaatadeeda leh dadka inta badan ka falcelinaya hadalka fartuun balbalaarka waxa ay aada markaasi ula dareemayeen murugada maadaama dadka intooda badan ay wada qirsan yihiin in markaasi furiinka uu yahay shay aanu wanaagsaneyn dhibaato badanna laga dhaxlo waxaana dadka qaar ay ku bogaadayeen in nolosheeda ay dib u dhisto in nolol qurux badan ay ku noolaato waxaa nasiib darro ah oo ayaan darro ah in markaasi run ahaantii burburka qoyska dhibaatooyinka ugu weyn ee laga dhexlayo in dumarka ay keli ku noqdeen haddii ay noqon lahayd dhibaatada kasoo gaarayso furiinka oo xitaa xiliyada qaar mararka qaar ay inta badan ayna soo gaaraan warar aada u kala duwan oo laga naxo waxaad maqlaysaa haweeney saygeeda markay kala tegay kadib awlaadii laga kaxaystay noloshii ay ku adkaatay gurigeedii gebi ahaanba uu burburay qof ay noqotay maalinba meel horle booqanaysa waxaad arkaysaa social media haddii aanu soo noqono furiinka kadib dad hawada iska dhaleeceynaya dad mar walba markaasi soo bandhigaya ceebaha furiinkooda sida uu ku yimid ceebta iyo markaasi ciladaha ka dhashay furiinkooda iyo waxyaabo badan oo ay ka hadlayaan oo aan habbooneyn run ahaantii in ay soo bandhigaan waana wax aada looga xumaado waan usoo duceynaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee dhibaatadan la daala dhacaya waxaana oga rajeynaynaa in alla uu samata bixiyo kana dulqaado culeyska haysta meel walboo dunida dacladeeda ay ka joogaan social media haddii aynu usoo noqono dadka caanka ah fartuun balbalaarkana ay kamid tahay fartuun waxyaabo badan ayaa jiray oo ay iswadaarsanayeen iyada iyo seegeeda cusmaan diamond marka ay kala tageen kadib
dhaleeceyn fara badan oo dusha ay isaga tuurayeen. Cusmaan waxa uu gabadha ku eedeynayay in rag ajaanib ah ay iyadu magaalada Nairobi waqti kula qaadanaysay xilli isaga uu ku sugnaa magaalada Muqdisho, oo xitaa canuga ay isku dhaleen daryeel iyo sidoo kale daryeel xumo uu aad markaasi magaalada ugu rafaasana ama gudaha magaalada Muqdisho daryeel xumo ay ku haysatay, maadaama ay adagtahay canug umul ah ama yar oo 6 bilood ama 7 bilood 8 bilood jira aanu hooyadii ka agdhoweyn, xilligaasina ay u baahneyd in daryeel iyo xanaano ay siiso. waxyaabaha kale ee Cusmaan uu ka warbixinay wax qaybka ah oo aad u qunsaday mar uu arrimahan ka hadlayay inuu Fartuun uu aad ugu eedeynaya arrimo badan. Fartuun qudheedu waxay sheegtay in furiinkoodu ay sabab u noqdeen gabar ay Cusmaan walaalo yihiin, arrintaasina ay ka dambeysay sida iyadu ay goor sii horeysay arrinkan ay kaga hadashay. si wad soo wad hadda wixii tagay tigsimaad ma laha. iminka Fartuun Balbalaarka magaalada Nairobi ay ku sugnayd fiidiyoo kala duwan ay halkaasi dadweynaha TikTok kula wadaagaysay, waxaana dadka intooda badan ay aad ugu dhaliilayeen bal isbedelka ku yimid nolosheeda, gaar ahaan haddii ay noqon lahayd labiska ay iyadu xidhanayso, dhaqamada kala duwan ee iminka ay iyadu aaminsan tahay, reer magaalnimada ay u taqaano oo ay sameynaysay, iyo waxyaabo badan oo dadka aad ugu dhaliilayeen. Balbalaarka runtii waa arin aad markaasi u adag marka la eego waxyaabaha dumarkeena social mediaha ay kala kulmayaan. marar badan ayaynu maqalnay dhacdooyinkan oo kale oo aynu soo gaareen, dhagaheena ay kusoo dhaceen haween amaba dad social media caanka ah furiinkooda si live ah hawada markaasi dadka ugu marinayo. iminkana waxaa leeyahay waxaa caadi noqotayba qofka in noloshiisa privateka uu ka hadlo oo wax walba oo gurigiisa ka dhexdhacayo dadka uu soo bandhigo. maxkamadii waxay isu bedeshay social mediaha TikTok-ga, halkii waagii hore qaali qofka dadka meheriya ama maxkamad la aadi jiray oo haddii muran uu jiro amaba isqabqabsi oo labada qof ee lamaanaha u dhaxeeya halkaasi ay ku kala bixi jireen, gar ay jirtay, odayaasha ay dhigan jireen, la wada fariisan jiray labada dhinac, geed hoostiis lagu wada kulmi jiray, arrinkaasi la xidhi halkaa lagu xalin jiray. laakiin iminka waxaad moodaa gabdhaheena inta badan aad bay u wanaagsan yihiin marka laga reebo tiro aad u yar, laakiin TikTok-gii oo noqday aalad markaasi si weyn dhibaato ba-an ugu hayo ummadda Soomaaliyeed. waxaan rajaynaynaa in laga gudbi doono marxaladan, sidoo kale gabdhaheena dhaqankooda ay aad u ilaalin doonaan oo ilaahay uu tusin doono wadada ugu wanaagsan ee tahay in iyagu ay ku socdaan, haddii ay noqon lahayd asturnaantii, waxyaabihii markaasi laga xishoon jiray, cawradoodii, sidoo kale quruxdoodii, iyo sidoo kale sumcadooda iyo ixtiraam shakhsiyad ahaantooda, waxyaabaha ay habboon tahay in iyagu ay aad markaasi uga barandegaan oo aysan ku degdegin inay ka fogaan doonaan. si kastaba aatee balbaraarka ayaan kusoo xiraynaa muuqaalkayaga maanta oo arrintaasi aynu kaga hadlaynay, waana filaya inaad ka bogateen fiidiyowgan qeybaha hordhaca ah oo waxyaabo badan aynu ku faaqidnay. subscribe inoo sar janalkan meel walbood joogto, laagaree muuqaalkan, aad baan idinkaga mahad celinaynaa sidaad nagu xidhantiin. taniyo ismaqalkeena xiga waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.